السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliya meel kasta joogtaan waa salaamantihiin. Waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo xanuunada ka midka ah dhimirka ku dhaca oo la yiraahdo walbahaarka ama depressionka. Waa xanuunka ugu badan ee dadka ku dhaca marka researchka la sameeyay. Kaasaan rabaa inaan qeexo calaamaadka lagu garto waxyaabaha uu dhakhtarku eegayo marka uu xanuunkaasi kugu sheegayo. Okay. Si caam ahaan xanuunkaasi waxaa saddex siyaabood qofku markuu ku sifoodo ama ay xaadir yihiin oo qofku isku arko ayaa xanuunkaasi helayaan. Saddexda siyaabood waxa weeyaan in sagaalka calaamadood lagu garto walbahaarka ama depressionka 5 kamid ah qofkaasi ay haysato. In shanta calaamadoodii ay qofka xaadir ku ahaayeen ama uu garanaysaa isku arkay labadii wiiga la soo dhaafay iyo kan saddexaad oo ah inay wax ka bedeleen calaamaadkaasi wax ka bedeleen qofka inuu noloshii dhaqankeedii wax ka bedeleen ha noqoto inuu naftiisa hanto oo awood u yeesho inuu naftiisa take karayo ama inuu la dhaqanka bini'aadamka relationshipkiisa wax ka bedesho ama uu noqdo qof garanaysaa furfurnaan ahaan jiray oo hadda qolka isku soo xiray oo withdrawal sameeyay ama ha noqoto qof let's say shaqo haystay oo shaqadii gabay ama iskuul tagi jiray oo iskuulkii gabay oo hawshii uu responsibility-gii ahaa kasoo bixi waayey ay sababna u tahay calaamaadkaas. Okay, haddaan hoos usii galno sagaalka calaamadood ee depressionka lagu yaqaano ayaan rabaa inaan sheego and then aan qeexo iyo meelaha ka midka brainka ee hadda researchku ay la qiyaaso inay wax ka sii yihiin oo garanaysaa lagu sababeeyo inay calaamaadkaas la xidhiidhaan. cilmiga hadda jooga brainka waa waxa weeyaan sideedaba very complex weeyaan oo yani maskaxdan bini'aadamku waa organka yani aad u muhiim oo si fiican loo fahansanayn. researchkuna waxay ku xiran tahay research ah observation in la eego maaha experiment ah in physically la arki karo waxa kan waxa yani diagnosis xitaa lagu gaaro qofku inuu information kan uu qofka bini'aadamka calaamaadka kan uu isagu sheego isku garto taasoo yani ka duwaysa xanuunada dhimirka ku dhaca xanuunada physically ku dhaca oo fududahay in lagu ogaado qofka wadnaha hadduu xanuuno oo kaleeto suurad baa lagu eegayaa garasa structureka wadnaha ayaa la ogaanaya laakiin maskaxda structurekeeda iyadoo waxba iska bedelin ayaa xanuunkaasi ku hayn karaa. macnaheedu waxay tahay functionkii maskaxdaada ayaa wax iska bedeleen. So taasna waxaan rabaa inaan mid walba calaamad kasta meelaha hadda la moodayo inay saameynteedu ku kooban tahay ayaan sheegi doona insha allah. Okay, calaamada ugu horeysa waxaa la dhahaa anhedonia ama qofku inuu dareemo inuu farxadii ama rayrayntii uu ka heli jiray waxyaabaha uu jecel yahay oo xiiseeyo ha noqoto dibadda inuu baxo dadka la sheekaysto ama qofka shaqada xiiseyn jiray ama simple stuff laakiin dibadda marmartood dadka la soo hadasho ama aad qof caawiso qofkii farxadda ay gelin jirto farxadahaas oo dhan ay ka tagaan. calaamadaas waa calaamad waxaana lagu ku dhacdaa baa la yidhahdaa qofka prefrontal cortexkiisa ayaa wax iska bedelan baa la yidhahdaa marka calaamadaas isku arko. Okay, iyo striatumka oo ah brainstemka xagga hoose. calaamada labaad waxa weeye changes in appetite qofka cuntadiisii hankii uu qabay cuntada inuu cuno ama appetite-kii uu yaraado ama uu bato. taasna way ka mid tahay calaamadaha ka midka depressionka. oo garanaysa qofkii taasna waxaa la yidhahdaa waxa weeyaan hypothalamus oo brainstemka ay ka timaadaa. kan saddexaad waxa weeye qofka inuu movementkiisii ama dhaqdhaqaaqiisa wax iska bedelno qofku noqdo qof markii hore firfircoonaan jiro socod badnaan jiro energykiisa yani laga dareemi jiray uu noqdo qof gaabiya. hadduu qof gaabiya ahaan jira uu noqdo qof very restless ah labada dhinac bay noqon kartaa movementkaasi slow or restlessness. waxaana la yidhahdaa waxay la xidhiidhaa prefrontalka striatumka iyo cerebellumka saddexdaa meelooda ka mid a maskaxda. cerebellumka oo ah meesha balance iyo waxaas qofka inuu balance gareeyo socodkiisa. tan afraad calaamada afraad waxa weeyaan hurdada qofka uu isbedesha changes in sleep. qofkaasi waxay noqon kartaa sleepkaasi inuu too much qofku seexdo ama uu wax yar u seexdo hurdadu ka yaraato. taasna waxaa mas-uul ka ah hypothalamuska la yiraahdo qanjirka la yiraahdo brainkeena ku yaala. calaamada shanaad waxa weeyaan concentrationka oo wax iska bedelaa dhibaatooyin ay ka dhacdaan ama noqoto qofka inuu yani concentration waxa la yiraahdaa in qofku inuu ku fiirsashadii qofku markuu rabo inuu wax qabto oo wixiisu uu qabto inuu maskaxdiisu xaadir tahay oo joogto ayaa lumaysa qofkaasi ama way yaraanaysa oo focuskiisa yaraanaya. maxaa la yiraahdaa waxa yaraanaysa qofkii inuu fiirsashadii wixii yani fudayd baa soo galaya. taasna waxa la yiraahdaa prefrontal cortexka ayaa laga maamulaa. calaamada lixaad waxay fatigue daal caajis garaysaa jirka dhan uu caajis ku yahay aad dareemayso sidii daalka ama daciifnimada taasoo noqon karta mid maskaxdaad ka
ka aragto marka yani experience-ku ay maskax tahay ama ay physical tahay yani qofku markuu maskaxda ka daalan yahay maxaa dhaca inuu waxba qabsan kari waayo wax walba ku cuslaadaan markaad physically ka daalan tahayna waan wada garanaynaa de hawsha walba qabsan kari waaysayo jirkuna ba yani iska daciifaya taasna waxaa laga maamulaa prefrontal cortexka iyo stratumka meel la yirahdo brainstemka ku jirta okay calaamada toddobaad baan u malaynayaa toddobaad waa guilt inuu qofku dareemo magaranaysaa shalayn wixii dhacay u shaleeyo oo ay yani macnaheedu tahay inuu perceptionka qofkaas uu noqdo mid negative ah oo naftiisa ka aamino oo naftiisa qoomeeyo yiraahdo maxaa waxa uu samaystay ama uu يعني distress dareemo oo maxay tahay distress la oran karaa yani naftiisa ugu cadhawdo oo kaleeto iyo dareemo inaan yani disappointment or failure adigu naftaada canaanato oo guilty aad dareento taasna waxay la xidhiidhaa prefrontal cortexka iyo amygdalada meesha la yiraahdo iyadna brainstemka ku taala okay kan sideedaad waa sad mood oo qofka moodkiisa ama hamigiisa ama danigiisa ay noqdo mid hooseeya oo low ah oo dareemayso unhappy oo kaleeto mar walba joogta unhappiness ka mar qaarkood yani markii wax ku dhacana unhappy na noqoto waa caadi laakiin inaad magaranaysaa unhappy noqoto oo moodkaagu ama dareenkaagu uu hooseeyo mar walba waa xanuun weeyaan taasna waxa weeyaan waxaa laga maamulaa prefrontal cortexka amygdalada iyo hippocampus-ka meesha memoryga iyo thalamuska all of those xagga gudaha ah oo brainstemka okay kan sideedaad numberka way khaldamay kan sideedaad suicidality qofku inuu dareemo inuu mar walba ay kusoo noqnoqoto fikir ah inuu naftiisa dilo ay maqaraysa britol ay ahayn noloshu aanay qiimo lahayn oo ka qusto noloshii qofku yiraahdo inaan noolaado waxa dhaantaa inaan iska dhinto oo xitaa ku fikiro naftiisa waxyaalo oo naftiisa qaado taasna waxaa laga maamulaa ay ka dhacda hadal maqaraysa fikradaasi prefrontal cortexka iyo amygdalada ka ugu dambeeya saqalaad ah qofku inuu dareemo worthlessness maxaa la yiraahdaa inuu yahay hopeless oo rajadii ilaahay ka quusto maxaa la yiraahdaa naxariista Allah ka quusan qofkaas quus baa ku dhacaysa nolosha ku quusanaya worthless naftiisu ka quusanaya wuxuu soo haystaa inuu insignificant yahay aanu de waxba ahayn oo cidina u baahnayn waxba ka bedelin adduunka taasi waxay fududaynaysaa qofku inuu yiraahdo isku qanciyo inaan dhintaa dhaanta inaan noolaado waxaa laga maamulaa oo fikradaasi ka dhacaan oo de fikradaha noocan oo dhan ah maskaxdana prefrontal cortexka iyo amygdalada okay sagaalka calaamadood ayaa lagu gartaa depressionka qofka in lagu diagnose gareeyo sida aan sheegay waa inay labadii week at least labadii week u dambeeyay qofku ay calaamaadkaasi xaadir ku ahaayeen severity-guna ay ahayd mid uu qofku maalin walba uu experience gareeyo ma aha waxaad maalin kaliya arkayso deedna kaa tegaya ha noqoto waa inay ama 4 joor magaraysaa weekii 4 joor ama maalin walba uu qofku isticmaalayo and then taakliya maahe inuu qofkii ay sababto inuu naftiisa uu haran kari waayo maxaa la yidhahdaa uu dadkii la dhaqankiisii wax iska bedelaan shaqadiisii qabsan kari waayo waxaasoo dhan markaas ayaa waxaa la yidhahdo major depressive disorder qofka lagu diagnose gareeya oo u baahan yahay inuu treatmentka intervention la sameeyo uu raadso professional help ha noqoto magaranaysaa xagga Minnesota anagu wadanka westkan deganahay qofku inuu appointment la samaysto someone who is specialized in psychiatric and mental health disorders ha noqoto therapist ama psychiatric provider okay waxaan rabaa inaan ku dabaqo diinteena كتابنا نقريه لده reflecting on the names of Allah وحقرت قبل لده جنان يوسف وحقول ربنا كنت بقول لما مقع أو إلهي ليها وكمت هاي إن الهادي الله مقرنسا الهادي يو الرشيد and الهادي means guidance and الرشد means the one who directs us to beneficial kind of goodness ilaahay unbaa magaranaysa qofku markuu dareemo xanuunadan isku arko way wanaagsan tahay inuu ilaahay talada saarto oo uu ilaahay magaranaysa guidance-ku waa spectrum oo kaleeto yani kulligeen oo dhan ma nihin perfect magaranaysa dad diinta aada u fahansan oo ku dhaqma khaladada sameynaysa biyaanad baa tahay laakiin markaad isxusuusiso inuu ilaahay uwada leeyahay mas-uuliyaadka dusha iska saaraysa markaad xanuunsato waa kaa kala yaraanaya ilaahayna waa kan isaga oo inoo naxariisanaya wadada saxda inagu toosiyo waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysataan sidaas khayr baan idin rajaynaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu